السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kasta joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. maamulayaasha fadhigoodu yahay bariga dalka Liibiya waxay iska soo musaafuriyeen 236 muhaajiriin Afrikaan ah oo sharci darro ku jooga dalkaasi. hadal qoraal oo ka soo baxay waaxda ka hortagga muhaajiriinta sharci darrada ah ayaa sheegay in ay shalay muhaajiriinta dib loogu soo celiyay dalkooda hooyo. qoraalka waxaa lagu sheegay in muhaajiriintaasi oo ka kala soo jeeday dalalka Soomaaliya, Suudaan, Itoobiya, Nigeria, Mali iyo Ghana shalay dib loogu soo celiyay dalkooda hooyo, balse ma kala cadda in ay muhaajiriinta Soomaalida lagu soo celiyay garoomada ku yaala Soomaaliya iyo in ay wadan saddexaad transit ay ku yihiin. maamulayaasha bariga Liibiya ma aysan sheegin tirada muhaajiriinta ka soo kala jeeda dalalkaasi. tahriibayaasha shalay laga soo tarxiilay bariga dalka Liibiya waxaa ka mid ahaa 6 haween ah iyo ilmo yaryar. kumanaan muhaajiriin badankooda Afrikaan yihiin ayaa marin ka dhigtay dalka Liibiya si ay ugu sii gudbaan xeebta galbeed ee Yurub iyadoo muhaajiriin badan ay badda ku laadeen. hay-adda muhaajiriinta ee IOM waxay dhowr jeer sheegtay in ay Liibiya ammaan u ahayn muhaajiriinta ay ugu soo qaxayaan sabab la xiriirta ama xumada ka taagan dalkooda hooyo. dalka Liibiya waxaa haatan ku nool in ka badan 6500 oo muhaajiriin oo sharci darro ah, kuwaas oo 6000 oo kamid ah yihiin caruur iyo haween lagu hayo xarumaha lagu